maxamed muuse jaamac haldoor waa suxufi, waana hogaamiye ummadeed, waana dhiirigeliye nololeed, waana wiil dhalinyaro ah oo naafo ka ah socodka kuna dhaqan gudaha Somaliland caasimadda Hargeysa. maxamed maaha naafonimadu wax uu ku dhashay, hase haatee waa qadar Eebbe oo ku dhacday muddo laga joogo 10 sano gudahood. halkaysa markaan imid lugahaygan ku soconayay waan macasalaamay noloshii socodka ahayd, waan macasalaamay noloshan meel kasta lugahayga ku aadi jiray. waxaan galay nolol cusub oo lugaha lagu socda ay yihiin baaskiilka loogu talagalay dadka aan laxaadkooda u dhamayn ama wheelchairka. toban sano iyo Tabaabushihii Taabo Galay waa barnaamij halgan adag lahaa, isla mar ahaantaana 10 sano u socday maxamed. waana barnaamij aanu marnaba ka quusanin, noloshiisa marna aanu isdiibin. waa barnaamij uu kor ugu qaadayay hankiisa saxaafadnimo, isagoo oo doonayay in uu mar uun ka muuqdo saaxadda saxaafadda. ku dhawaad 10,000 oo carqaladood ayaa maxamed ka hor imi, hase haatee waxaa kala weyneyd halgankiisa saxaafadnimo. runtii inankii taksiga waqti badan baa ka qaatay, lacag baan kusoo tiraystay. wuxuu igu yidhi walaalow 2 mid same, inaan halkaa ku dhigo kaa tago iyo inaan guriga kaa keenay kugu celiyo, waayo dee waad aragtaa laynama sii daynayo. dabadeetana xasan baan ku celiyey anoo runtii aad u niyad xumaaday ayaan xasan ku celiyey. dabeetana xasanna wuxuu yidhi kuwuu soo dayn miyaa? haa. dabeetana waxaan ku yidhi walaal ideji adna iska tag. ceebba ahay gu yimaado xasan waxaydiisu. dabadeetana markii aan degay baaskiilkii lay dhigay ayaan arkay ninka askariga baaskiilkaygii kala tuuray. runtii xasan baa soo baxay. markaan arkay xasan runtii aad baan u ooyey markaan xasan arkay. dabadeetana markuu ii yimid xasan ayaa wax dhacday. raalli ahaada. toban sano iyo Tabaabushihii Taabo Galay waa barnaamij uu maxamed kaga sheekeeyey waxyaabihii aadka u faraha badnaa ee taariikhda noloshiisa soo maray intii uu ku jiray halgankan.